halkani waa Singapore, waddanka afraad ee ugu qanisan dalalka dunida. Inkastoo dalkani horumar la yaab leh ka sameeyay adeegyada horumarinta waxbarashada, caafimaadka iyo xirfadaha, ayaa waxay ka dhigtay mid ka mid ah wadamada ugu horumarsan dunida. Singapore oo hore uga tirsanayd Malaysia ayaa Malaysia dhulkeeda ka saartay inay ka sii mid ahaato jasiiradan, iyadoo dadka reer Singapore boqolkiiba 80 ay wajahayeen faqri aad u daran, taasoo ay u dheerayd qabatinka maandooriyayaasha, sababtay saboolnimo, shaqo la'aan iyo qallaasi joogto ah oo ay dadku isku dilaan shilimaad yaryar. Haddaba waxaynu barnaamijkan kooban ku soo qaadanaynaa sida hal nin waddankan saboolka ugu bedelay mid ka mid ah wadamada ugu horumarsan caalamka. Lee Kuan Yew oo ahaa garyaqaan ayaa ra'iisul wasaare ka noqday Singapore. Waqtigaa Singapore umay diyaarsanayn ismaamul dal, ma jirin shaqooyin waxbarasho iyo badi adeegyada asaasiga ah. Lee waxa uu qaatay go'aamo caan baxay oo bedelay nolosha dadka reer Singapore. Waxa uu mamnuucay xorriyatul qowlkii, dadka cid kasta oo ku lug yeelata mudaharaado, rabshado iyo maandooriyaha waxay mutaysanaysay ciqaab adag. Wuxuuna taa bedelkeeda xoogga saaray horumarinta xirfadaha farsamada gacanta si loo soo saaro jiil xirfadlayaal ah. Balse dhibaatada ugu weyneed waxay ka taagnayd guryo la'aanta, taasoo boqolkiiba 70 dadka reer Singapore bilaa guryo ahaayeen. Si kastaba ha ahaatee, Lee waxa uu ku maareeyay dhibaatadan inay dowladdu iibsato dhul jaban oo ay ka dhisto guryo jaban oo muwaadiniintu ku iibsan karaan, boqolkiiba 25 mushaharkooda laga jarayo, taasoo dadka reer Singapore u sahashay inay si sahal ah guryo ku iibsan karaan. Iyadoo waqti xaadirkan boqolkiiba 80 dadka reer Singapore waxa ay ku nool yihiin guryo ay dowladdu dhistay. Dhibaatada kale ee haysatay dadka reer Singapore waqtigaa waxay ahayd shaqo la'aanta. Haddaba hogaamiyihii Lee ee waqtigaasi uu dadkiisa shaqo la'aanta uga saaro, waxa uu dejiyay qorshayaashaasoo lagu soo jiidanayo shirkadaha ajaanibta, taasoo dowladdiisii ku dhawaaqday inaan wax cashuura laga qaadan shirkadaha soo dega Singapore muddo 10 sano ah. Intaa kadib shirkado badan oo ajaanib ah ayaa soo degay Singapore, waxaana 10 sano kadib heerka shaqo la'aantu hoos ugu dhacday 0%, taasoo sababtay in dhaqaalihii waddankuna marba mar ka dambeysa uu si xawli ah u koro. Waxa kale oo hogaamiyihii Lee soo saaray sharciyo musuqmaasuqa lagula dagaalamayo, ciddii lagu helana ay ciqaab adag marayso, waxaana taa bedelkeeda kordhay 10 jibbaar mushaharkii shaqaalaha, taasoo ka dhigtay Singapore mid ka mid ah wadamada ugu horumarsan dunida. Haddaba su'aashiis weydiinta mudani waxay tahay, maxay hogaamiyayaasha Soomaalidu ka baran karaan horumarka Singapore?